السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي waxaan ahay Umar Maxamed Ali halkan waa kulmiye private school maanta ciwaanka aan soo diyaariyay wiilkan baa iga codsaday markaasi oo isagoo le markaasi waxaad inoo soo diyaarisaa qof markaasi hore u ahaan jiray ama qof waxa noo ahay marka loo yaqaano hogaamiye kadibna hogaamiyahaas wuxuu ahaa nin wanaagsan oo wax qabasho badan marka hogaamiyihii waxa lagu bedelay qof aan wax qabad lahayn marka qofkaasi sida looga cabanayo oo cabasho looga dirayo dadkana loo gaarsiinayo loo ogeysiinayo bal 10 inooga soo diyaari buu yiri marka 10 kan baan markaa soo diyaariyay insha Allah laba qofood baa markaasi u dhaxin doona Ali iyo nin la yiraahdo Ahmed hadaba waxay labadooduba ay jeedin doonaan cabasho ku saabsan hogaamiye iyagu hore mid u hogaaminayay wadanka ama meel ama markaasi meel iyagu ama gobolkoodaba hadana qofkaasi uu noqday mid wax soo saar la'aan ah oo aan markaasi saameyn balahayn marka 10 kan baan markaa kugu bari doonaa waxa markaasi wiilkan ay markaa mar walba igu soo celinayay inaan soo diyaariyo hadaba markaasi isagoo aan markaasi qofkaasi aan hawshiisa aan galayo oo aan markaa tixgelinayo codsigiisa ayaan u soo sameeyay adiguna waxaan doonayaa inaad wax badan aad ka faa'iido insha Allah waxyaabaha markaa soo diyaarinayo waxaan u baahanahay inaad ka faa'iido waxyaabo fara badan oo ay kamid yihiin erayada waxyaabaha qofka adigu aad u adeegsan leedahay dhow insha Allah ku soo dhawow waxa markaasi aan ciwaan u soo dhigay how to complain about an ineffective leader waxa loo yaqaanaa how to complain waa maxay waa sida looga cawdo waa sida looga sheegto about an ineffective leader macnaha hogaamiye aan wax qabad lahayn ineffective leader hogaamiye aan wax qabad lahayn oo aan firfircoonayn oo aan saameyn lahayn hogaamiyahaas oo hadda lagu bedelay ayaan doonaynaa marka inaan eedeyno oo waxyaabaha saas way wax ma qabanin inaan dhahno hadaba ku soo dhawaad aad ku cusub tahay kanaalka waxaan kugu baaqayaa ku soo biir subscribe saaro subscribe inaad taabato muhiim uu ku yahay si kanaalka aad ugu soo xiranto like saaro aniguna waxaan ahay Umar Maxamed Ali oo mar walba halkan u joogo inaan idin soo gudbiyo waxyaabaha faa'iidada leh ku soo dhawaada kanaalkeena kulmiye private school iyo bilowga 10keena maantan واتحي وحواي مركا وحبلاواي مركا هذا أحمد ببلاواي أحمد نين كلي يرادو أيام مركا بلاوايو إسقوا كهذلايو نين كان ماشى الله صاري عن وحقبت بلهين هجاميهن إسق أيام كهذل دونا مركا أحمد وحولي هاي I don't understand why they removed our former leader he was doing a great job at least when he was in charge the roads were clean the market was organized and we had proper water supply but now look around the streets are full of trash nothing is being maintained and no one listens to our problems anymore وحولي أحمد وحويري I don't understand anigu ma fahmayo macnaha waxaan fahmi la'ahay why they removed sababta ay u saareen our former leader hogaamiyaheeni hore sababta ay u bixiyeen ayaan anigu fahmi la'ahay buu yiri he was doing great job ninkaas wuxuu qabanayay shaqo fiican ayuu hayay he was doing a great job ninkaas shaqo fiican buu hayay hogaamiyaheeni hore at least hadaba ugu yaraan when he was in charge markii isaga uu xukunka hayay at least ugu yaraan when he was in charge hogaamiyaheeni hore markuu xukunka hayay the roads wadooyinka waa clean waxay ahaayeen kuwa nadiif ah the roads were clean and wadooyinka waxay ahaayeen kuwa nadiif ah ayay ahaayeen the market was organized war suuqyo ayaa la abaabulay suuqyo baa la dhisay the market was organized war suuqyo ayaa la dhisay and we had proper water supply wuxuu yiri and we had waxaanu haysanay proper water supply biyo nadiif ah oo nagu filan ayaan haysanay buu yiri markii hogaamiyaheeni hore kuwaas baan haysanay hada markaa wuxuu yiri but now laakiin hadda look around dhinacan fiiri the streets are full of trash wadooyinka qashin baa ka buuxa the streets wadooyinka are full of trash waxa ka buuxa qashin baa ka buuxo nothing is being maintained oo waxba macnaha waxba lama qabanin waxba lama ahan macnaha waxba lama sameeynin waa okay nothing is being maintained waxba laguma qabanin waxyaabihi ama xilkii la qabtay okay waxba lama qabanin and no one listens qofna ma dhageysanayo to our problems dhibaatooyinkeena cidna ma dhageysanayso anymore in badan and no one listens qofna ma dhageysanayo to our problems dhibaatooyinkeena anymore in badan qofna ma dhageysanayo hadan hadalno on doodno aan qeylino cidna ma dhageysanayo buu yiri next hadaba kan ku xiga علي با ماشي جوجي علي با قبصدي ميكروفونka wuxuu yiri I agree waan ku wanacsanahay buu yiri
I agree waan kugu raacsanahay ever since this new leader okay tan iyo markii uu qabtay markaasi ninka la yiraahdo ama hogaamiye cusub took over uu markaasi xilka qabtay wuxuu yiri ever since tan iyo markii this okay ever since this waxa waaye ever since this tan iyo markii new leader hogaamiyaha cusub took over uu xilka la wareegay things have only gotten worse dhammaan wax walba way sii xumaadeen okay wuxuu yiri Ahmed Ali wuxuu yiri I agree niyo waan kugu raacsanahay ever since this tan iyo markii the new leader hogaamiyaha cusub took over uu awoodda qabsaday uu xilka la wareegay things have only gotten worse dhammaan ashyaada oo dhan hadda waxa way kaliya way sii xumaadeenba okay gotten worse waa maxay waa sii xumaansho way sii xumaadeen macna things have only gotten worse wax walba way sii xumaadeen people complain every day dadkana mar walba way cawdaan people dadkana complain way cawdaan macna dadka way qayliyaan every day maalin walba dadka way cawdaan balse he does nothing waxba ma ahan waxba laga soo qaaday warkooda he just sits in his office kaliya xafiiskiisa iska fadhiyaa isaga okay he just sits kaliya isaga wuxuu iska fadhiyaa in his office xafiiskiisa iska fadhiyaa hogaamiyahan kaliya xafiiskiisa iska fadhiyaa while everything falls apart oo marka ay wax walbana ay kala daadanayaan while and everything oo marka inkasto ama marka wax kastana falls apart ay kala daadanayaan okay oo ay kala daadanayaan wax kasta ay kala daadanayaan isagana uu iska fadhiyo xafiiskiisa iska fadhiyo Ahmed baa hadal qabsaday wuxuu yiri exactly dhab ahaantii sax waay we need waxaan u baahannahay to do something about this tan inaan wax ka qabana u baahannahay we need waxaan u baahannahay to do something about this tani inaan wax ka qabanno ayaan u baahannahay we should gather oo yiri wuxuu yiri we should gather waa inaan aruurinaa oo isku keenna the community bulshada waa inaan bulshada isku keenna and officially report si rasmi ahna aan ugu sheegno our concerns tabashooyinkeena si markaas rasmi ah aan u sheegno wuxuu yiri ninkan we should gather waa inaan aruurinaa dhammaan bulshada okay we should gather waa inaan isku keenna the community bulshada waa inaan isku keenna and officially report si rasmi ahna waa inaan u sheegnaa macnaha wuxuu yiri unofficially macna officially waa maxay si rasmi ah waay report no ma inaad wax gudbisid wax sheegtid way wuxuu yiri marka we should gather waa inaan isku keenna the community bulshada and officially report si rasmi ahna waa inaan u sheegno our concerns tabashooyinkeenana waa inaan sheegno okay kana markaasuu yiri if we stay hadii aanu sii joogno macna if we stay silent buu yiri hadii aanu iska aamusnaano if we stay silent hadii aanu iska aamusnaano things and dhammaan wax walba will only get worse way ka sii darayaan way sii xumaanayaan buu yiri things will only get worse wallahi ashyaado dhanna way kaliya way sii xumaanayaan oo faraha bay ka baxi doonaan okay Ali wuxuu yiri alina yes ha buu yiri niyo we should write waa inaan qornaa a formal complaint warqad cabasho ah waa inaan qorno and get signatures waa in uu saxiixo from everyone qof kastana waa inuu saxiixa warqadaas okay Ali wuxuu yiri yes ha we should write waa inaan qorno a formal complaint oo ah warqad cabasho waa inaan qorno and get signatures waa inuu saxiixa warqadaas from everyone qof kastana waa inuu saxiixa this leader hogaamiyahan is useless waxba ma aha okay hogaamiyahan buu yiri waxba ma tarayo okay this leader hogaamiyahan haddana loo saaray is useless waxba ma tarayo compared to markii loo barbar dhigo hogaamiyahan the previous one kii hore markii loo barbar dhigo kii hore noo ficnaayo kan waxba ma ahan buu leeyahay hadaba intaas baan ku soo afmeeray hadaba inta maxaa lagu yiri this is an example tani waa tusaale of how people taasoo dadka in a community bulsho ahaan might express ay ku muujin karaan frustration niyad jabka over a leadership change kaasoo markaasi niyad jab isbedel hogaanka ah uu ku yimid okay uu ku yimid frustration waa maxay niyad jab
over a leadership change kaasoo ku yimid isbedel hogaamineed. The conversation wada sheekaysigana focuses on wuxuu diiradda saarayaa real issues dhibaatooyinka dhabta ah rather than taas markaas bedelkeed personal attacks intii qofka lagu weerari lahaa shakhsi ahaantiisa or tribal arguments ama muran qabyaalad ahaan qofka intii loola bareeri lahaa. Making it more effective, making it iyadoo ka dhigaysa more effective mid wax ku ool ah when raising a complaint markii la soo jeedinayo cabasho. halkaas baa idinku soo afmeeraya endi waa dhamaad halkaas aan ku soo afmeeray saaxiibayaal waxaan rajeynayaa adiguna hadad ka heshay inaad si share gareyso qof waliba oo markaasi nala jiro oo halkan nagu xiran oo mar waliba 10 aan soo gudbinayo nala faafinaya isagana aad buu maasan yahay qof walba nagu soo biir saaxiibkaaga u sii share garay hadaba ila daawo muuqaalka xiga. waxaa la marayaa sanadka 2025 welina maadan baran luqadda Ingiriishta. haddaba haddii aynu nahay bahda kulmiye private school waxaanu bixinaynaa course English oo lagu qaadan doono dhammaan heerarka luqadda Ingiriishka sida level 1 oo ah heerka koowaad. waxaanad ku baran doontaa heerkani book 1 English, book 2 English, basic vocabularies book, level 2 oo aan kugu diyaarinay buugaagta kala ah intermediate English book, revising English book, intermediate vocabulary book, level 3 oo ah heerka saddexaad oo aad ku qaadan doonto buugaagta kala ah basic English grammar, topic English book, phrasal verbs English book. haddaba haddii aad doonayso sanadkan aad luqadda Ingiriiska aad barato waliba hab online ah adigoo gurigaaga jooga buugaagtani waxaan kugu soo diraynaa WhatsApp-kaaga casharadana waxaad ku qaadan doontaa group Telegram. haddaba haddii aad diyaar u tahay inaad luqadda Ingiriiska barato sanadka 2025 inta lagu guda jiro waxaanu ku diyaarinay course-kan ka kooban 3 heer ee luqadda Ingiriiska. buugaagta aan ku diyaarinayna waxaad ku helaysaa oo kugu soo diri doonaa WhatsApp-kaaga adigoo ku helayo casharada buugaagtanina Telegram-ka. haddaba haddii aad doonayso inaad sanadkan iska dhisto luqadda Ingiriiska fadlan hamoogan kulmiye private school oo bixinayo course-kani luqadda Ingiriiska waliba hab free adigoo ku heli doona. soo booqo numberka shashada kaga muuqda. haddaba no more.